in ka badan 60 xisbi siyaasadeed oo kamid ah xisbiyada siyaasadda ka jira gudaha dalka Soomaaliya kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay kaga soo horjeesteen qodobadii ka soo baxay shirkii ku soo idlaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kaasi oo u dhaxeeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka sidoo kale kulankooda ayay waxay kaga hadleen sida dalkan uga dhici karto doorasho qof iyo cod isla markaana ay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga doorashooyinka qaranka u yaala waa kuwan qaar kamid ah mas'uuliyiinta xisbiyada siyaasadda dalka oo arrimahaasi ka hadlaya sidaas darteed haddana xisbiyada siyaasadeed ee dalka waxaan isla qaadanay in doorashada waqtigeedii la qabto oo lagu qabto in ay xisbiyada siyaasadeed doorashada ay ummadii Soomaaliyeed ku matalaan xisbi ahaan ay ku matalaan deegaan ahaan ay ku matalaan maadaama inta badan ee maanta shacabka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin xisbiyadan oo xisbiyadan ay wada matalaan dhammaan gobolada dalka inta badan aqlabiyada Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin in codkoodu ay ku matalaan xisbiyada siyaasadeed sidaas darteed annagu waxaan soo dhaweynaynaa oo aan diyaar u nahay in doorashada waqtigeedana la qabto hanaan xisbina lagu qabto anagoo 65 xisbi ah waxa mahad gaar leh fursad aad u weyn inaan isku weelno 65 xisbi oo meesha ku kulannay maanta baaq aan ka soo jeedinayno waxay tahay annaga waxaan diyaar u nahay inaan helno qof iyo cod aan shaki ku jirin laab ku jirin cad bayaan cad ah inaan helno qof iyo cod qofkaas iyo cod waan u soo kacnay xafiisaha u subsanay xisbi diiwaangelina u tagnay waxaan u taaganahay doorasho qof iyo cod ah way jirtaa hadda maalmahan hadallo badan oo meediyaha ku jira iyo meelo shirar ka socdaan shirka ka socda ka dhacay galguduud ee magaalada Dhuusamareeb annaga in la shiro oo Soomaaliya inta shirto wax isku afgarato oo nabad ay timaado waan jecel lahay waana soo dhaweynaynaa laakiin ma soo dhaweynayna wax kasta oo dastuurka dalka waafaqsanayn annaga waxaan ku dhisannahay oo xisbiyada ku samaysanay oo ku shaqeynayna rabitaanka shacabka iyo dastuurka dalka waxa noogu qoran dastuurka dalka qofkii jabiyaa waa qof dalkii bowd furay ma aqbali doono waxaanu diyaar u nahay sharciga dalka in la ilaaliyo oo wax ka ilaalino oo shacabka Soomaaliyeedna in badanna waan ka soo shaqeynaynay waana u diyaar maanta shacabku inuu doorasho aado qof iyo cod uu galo hab xisbiya uu ku galo muddo 4 sano ah laga soo shaqeynayay gabagabadii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga midnimada dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeelle waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa gaar ahaan dowlad goboleedyada inaynan 2016 aynan ahayn maanta oo ay tahay 2020 oo 2020 shalay warka ka soo baxa marka